waxa weeye maanta shacabkii wada hubaysan iyo magaaladii isbedel weyn laga dareemayo aad iyo aad bay shacabku u hubaysan yahay xalayna dagaal culus baa magaalada ka dhacay dawlad u jeedaan waxa weeye shacabkii wada hubaysan qoryaha hubka culus noocyada kala duwan ku hubaysan waxa weeye qof aan hubaysanayn ma jiro maanta magaalada shacabkuna isbedel weyn baa magaalada laga dareemaya iyaga haysta shacabka haysta laascaanood بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay hadii shirkadu internetka la sii deyn waayo mas'uuliyadda Soomaaliland ba qaadaysa shirkadu way gubanaysaa ka dhaqaaqay mayno waxaan leenahay hadda tansiil doonaysan furaha deer annagu la faqaadi mayna kii aad dishay oo dhab oo kafantii ku jira iyaanu diyaaradda saarana adna maxkamad kula saarana waxaan salaamayaa ilaa cadda daljir iyo shaqaalaheeda sida habsamida leh waxaan ay nolol shaqaysay waxaan uga gudbayaa 3 qodob oo yaryar qodobka hore waxa weeye waxaan la hadlayaa Muuse Biixi oo been baad sheegtay dadka aad qarisayna waad ku tala gashay inaad qariso laakiin dad bay ka maqan yihiin waxaad soo ogaataa tuka cabdihayaan adaa lafaha daba qaaday diyaaradana saaray in adeerkaana u dhiibay adaana haysta annagu la faqaadi mayna kii aad dishay oo dhab oo kafantii ku jira iyaanu diyaaradda saarana adna maxkamad kula saarana isagii oo nool isagii oo meeyda oo maanta aad dishay yaa maxkamadda lagu la saarayaa lafihii dadkii hore lagu soo saari maayo taa la soco talabaad waxa weeye Muuse intaasaan kaga tagayaa waxaan Muuse u raacinayaa aniga caaqilkayga aad dilay mutacallinkayga adiga dilay chief caaqilkayga Xariir Maxamuud Xoosh aduu kugu maqan yahay mutacallimiintayda aday kugu maqan tahay maxamed aflahaar baa ugu dambeeyay laakiin dadkan ilaahay baa ugu tala galay oo qof qiimo laga waayay maayo waa rabbaaniye waa dadkii ilaahay uu ku ilaalinayay diintiisa iyo dalkiisa horay uga dhashaan wana ka dhalanayaan intaasaan kaaga tagayaa bulshada waxaan leeyahay dhulbahante aniga iyo korneelka Cabdirisaaq labadayadan korneel 4 sanadood dagaalka waa ka jiifnay halgankii hore yaanu dayac ku gaadhnay inkastoo halganka loo dayacmo waa nala qaadan waayay annana 4 sanadood dib baanu u dhignay wixii aanu yeelna cidna ka qarin mayna maanta dagaalka lambar 1 baanu ka nahay naftayadaana ugu horeysa wax gelaysa waana ku guuleysanana taas sidaan ugu ogaaday intii aanu ka fadhinay waa u kacana bulshada waxaan leeyahay haddaan la dhiman oo maatada aan la layn oo dhalinyarada aan la layn oo aan la ololin ma gaadhasaan hadafkaad leedihiin mana helasaan ku kalsoonaada wixii gaadha qaata qoriga kaca dagaalama ololiya guba ka kaca fadhiga hanasanina ha aajisina innaga isku filan sida korneelku yiri korneel Cabdirisaaq hana sugan cidii noo heelinaysa annaga ka adag kuna filan waana isqaanayo dadka hadeer lama abuurin dadku waligiiba waa jiray waligeedna waa la istiri jiray idina dagaal iyo xabad annaga noogama adka daraawiish baanu u nahay dhulbahantaanu u nahay daarood baanu u nahay harti baanu u nahay waa ku filannahay kuwa ku jira anigu odhan maayo SLM laascaanood ka taga laascaanood xabad bay kaga tagayaan laakiin kuwa ku jira waxaan leeyahay aqoon xumayna hayse iskaga soo baxa maalin ayaan waji leynahay intaad ka soo bixi lahaydeen maanta waan rabnaa ka soo baxa garabkayagaysa soo taaga dadkiina xabadda ka daaya dalkiina gubista ka daaya cadowga ha u soo raacina
الدنيا ذا وحوي هدي أصلا كل متان التاريخ بقر مساء هدي أدنولاتان والدلك ونحرين الناي وحروبنا مجا هي مسكب كويا لما يسان واحد نقول سان ده الضعف فأنت يدين ضعف نقول وحي هرا هبا يسكد عينه الماذا ريال اسكا صوبحا وانو إن ربنا هدي أيضا إذن كنا جمار من وحن هذا الكي كجت